أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز أي برنامج كيني هدية الإسلام كله المامي برنامج تدوات كهروح نقصار من هذا خنارات قابل وقصة حسين مجاهد كوين يوسف المتعشفين الله عنه حرسته وحنصدق كلا عن كسر إلا هير والنقضة هو جميعها إذا تدوات كنا إن شاء الله والكاسة نكسي البقاعدة كسر هذا مركز أي برنامج كوردين كلا بحار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث وحور كان هور مركز حاول كسر ضابع معلم maalinta ka dambaysa oo ay qabsadeen magaalooyin badan dad badan ku soo celiyeen dariiqii saxda ah ee diinta islaamka qaarkoodna ay dib ka soo islaameen waxa dhacday in mid kamid ah dagaaladii ba'naa ay la galeen muraabidiintu qabiilka la yiraahdo Baraqosa inuu ku shahiiday Allah u naxariistay imaamkiina Mujaahid Cabdullah ibn Yaasin sanadu markay ahayd 450 hijriyada. haddaba sidaynu wada ogsoon xurkan ilaha laba garab oo ah dhinaca ruuxiga diiniga ah hogaaminaya imaam Cabdullah ibn Yaasin iyo dhinaca siyaasiga oo hogaaminaya Mir Abu Bakr ibn Umar. markii uu shahiiday Cabdullah ibn Yaasin Allah u naxariistay waxay labadii garab ee kala ah dhinaca diiniga iyo siyaasiga ku midoobeen oo wada hoostageen Mir Abu Bakr ibn Umar. isagoo amiirku halkii ka sii anbaqaaday hor socodka ururka wuxuuna furtay magaalooyin fara badan. والفرشة حولها كسرتها وجد وحاول بكر كقص بنايد يدب وقول نقدر كي يدكناين أو هشيس لقلو قبيلة كلا ونص كلا كقص بنايد وحكم كسي تجا إن هذير كي نبي يوسف ابن تاشفين الله نحرسته وهو جاميها عيد مضى يوسف وحلاوة بالجود كهجاتي دمان هاي كلا دولة سيد عدالة ذكر صال كي عيد مضى أبو بكر وحصان نقضي دولتي كون عكس سيد وكجتي وحنا قاصدين وجتنا صراحة كيوسف ابن تاشفين صابت حاركين يوسف كجفي عيك جنا ونعكسين هي ما ملكيه كان كدولة ديت أمير أبو بكر أنتو يسوي على دمان دتك كوس جري دولة ديسة أيود سعدو الشيء إنه حكم كوجتنا سوري يوسف ابن تاشفين ما أنت لقى بلعبنا وجهي يوسف حكاميها أورك مرابطين تا بالدولة ده dadkii dheergaradka ahaa iyo culimadii waxay ku waafaqeen oo ku qanceen doorashada iyo tanaasulka Abu Bakr aqoon dheeraad ah oo lahaay Yusuf ibn Tashfin awgeed aqoontaas oo ah inuu yahay nin ku saahilay dunida ahrin cadaalad iyo alla ka cabsi badan cilmi ahaana dhisan. Yusuf wuxuu sameeyay maalintii horeysay xukunkiisa wuxuu bedelay hadafkii ay lahaayeen ururka oo ka dhigay mid ku soo ururtay hadaf ku aadan faafinta diinta islaamka kana dhigay dawladdu hoggaankeedu yahay kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. وحنو دمايستر دمان هاي كلا داي دولة دلادهاي تسأل عن يوسف بن تاشفين الله نحرسته وحي سميه إنو كلا قيبيا لوكي فرح بدنا أو كلا ساري قبل لي معمولي دقموين سيدو كالو حقيب سعيد مدي سيترودو دلوكي ياسو فرطن كونو عسكري إذن كستو حكو عدي جهة عيمن أما قول عيمن وحنو سيدو كلا بلابين وسميه عاصمت وحال كاس كلا تمقالة الله يقع مراكش يكو تار ودن كماروكو هاتن وحنو أساس السنة وبركة هيد أفر بقولي أفريقون تكي جريدا waxaana ku soo biiray qabiil kamid ah qabiilada ugu waaweyn barbariyiinta ama saamaasiiqda oo la oran jiray masaamida iyagoo aaminay fikradii ururkan ku socday kana mid noqday tiirarka ugu adag ku dhisan yahay ciidanka Yusuf ibn Tashfin Allah naxariistay. Yusuf ibn Tashfin wuxuu sii waday mashruuciisa ballaaran ee ahaa madaynta dhulka saxaraha ee hadda aynu naqan waqooyiga Afrika. Yusuf ma ahayn sida boqorada iyo madaxda waqti xaadirkan oo kale wuxuu ahaa nin toosana cad ku xukmay diinta islaamka isla markaana aan arkin xukunka iyo kursiga uu haysto raaxiya faan. بسبب مد دلالة وكور قلدت كوتر يوم شعب إلا عيدا كان وراه حدودها دركيسا ولي يوسف محرن عن صوفة حين ما نكون ولا نقول بقرطية ما سمد احتيا وقرح بدن سيدا كلا سيدا قرية تاريخي هنادي يوسف ولي معن
cunto aan ahayn heed iyo ama hilibka iyo caanaha geela wuxuuna hawshaas ku jira oo aanu sanadna ka nasan mideynta dhulkaasi weliba faafinta diinta islaamka muddo dhan 20 sano oo xidhiidha wuxuuna dhisay dowlad aad iyo aad u weyn laga bilaabo Tunisia bari ahaan ilaa la gaaro galbeed badweynta Atlantika laga bilaabo waqooyi badweynta badda Mediterranean-ka wuxuuna gaaray xuduudaha Senegal, Chad, Mali iyo Niger dhinaca koonfur wuxuuna xukumay Afrika marka 3 loo qaybiyo meel ahaan haddaba markii uu ku guuleystay mashruuciisa muddo dhan 20 sanadood dadka qaar waxay u soo jeediyeen inuu noqdo khaliifka muslimiinta oo meesha laga saaro khilaafadii Cabbaasiyiinta ee taalka darneed balse Yuusuf ma ahayn qof kursiga masab jecel wuxuu ku adkaystay inay noqoto dowladda hogaamiyaha ka yahay gobol ama wilaayad waafaqsan khilaafada Cabbaasiyiinta isagoo nacbaysanaya kala jejebinta dowladda islaamka sida ogad wuxuu diray warqadii taabacsanaanta ee ahayd inuu aqbalay inuu kamid ahaado gobol ama wilaayad kamid ah khilaafadii Cabbaasiyiinta wuxuuna Cabbaasiyiinta u talin jiray waqtiga khaliifkii la oran jiray al-Mustadhir billah xaalku markuu halkaa marayo oo ku guuleystay mideynta dowladdiisa dhulka intaas leeg Maraakiishna ay noqotay caasimadda xadaaradda iyo ganacsiga waddanka la jaarka ah ee Andalus haatan loo yaqaan Spain iyo Portugal iyo isna wuxuu maraya marxalada la mid ah tii ay soo mareen muraabidiinta oo kale Andalus waxay u kala go'go'doona kala jabeen 22 dowladood oo hogaaminayeen 22 amiir oo midka kale oo leeyahay lana dagaalamayo wuxuu sidii waqtigu ahaadaan maalinta ka dambaysa oo uga sii daraba amiir hadduu la dagaalamaya amiir kale wuxuu heshiis kula geli jiray gaalada inuu siinayo dhufays ama qalcad marka magaalada amiirkaas kala qabsadaan kiristaanku waxay wateen qorshe aan muuqan oo hogaaminaya Alfonso Sadis ama Alfonso lixaad ee Spain oo ahaa in si dhan loola wareego Andalus isla markaana oo laga takhaluso markii haddaba howluhu halkaa marayeen ayaa waxaa soo gaadhay Yuusuf ibn Tashfin qaylada oranaysa kiristaanku wuxuu la wareegay caasimadda Andalus ee Toledo ama Toledo sida loo yaqaano xalqada soo socota aynu ku arki doonaa Yuusuf Allah ha naxariisto wuxuu ka yeelay uu maamulo hawshaas jihaadiga ah ولن أثرى نقشا صورا نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا